xafladani oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiin, aqoon-yahano, haween, culamaa u diin iyo dhalinyaro ayaa ujeedkeedu ahaa caleemasaar loo sameynayay gudoomiyaha guud ee jaaliyadda galmudug ee wadanka Norway kaasi oo dhowaan lagu doortay magaalada Oslo. Furitaanka xafladda waxaa ka hadlay Axmed Qare oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyay xafladda asagoo kaga mahad celiyay dhinacyadii kasoo qayb galay. Bismillah, alxamdulilah, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horey waxaan u mahad celinaa dhammaan ikhyaarta halka fadhisa oo kasoo qayb gashay caleemasaarka gudoomiyaha jaaliyadda galmudug. Waxaan leeyahay aada iyo aada u mahadsantihiin geeritaankii iyo kasoo qaybgalkii aad kasoo qayb gasheen, magac kasto iyo miisaan kastoo aada leedihiin. Intaas kadib sida uu sheegay walaalka barnaamijka wada oo ah shirka inaan furo, kulley dad iga mudan muddo ahaan iyo aqoon ahaan iyo intaba iga mudnaaya jira, laakiin kulley waxaa oo igu dhacay in la igu yeero oo la yiraa fur. ayadana waa ka cudur daarana, waxaan leeyahay intii iga mudneed ayadana waxaan leeyahay raalli ha ahaadeen. Intaa kadib sida loo sheegay kulanku wuxuu ku saabsan yahay ama shirku caleemasaarka gudoomiyaha. waxaan doonaynaa insha allahu tacaala in maadaama waqti culus aan ku jirno oo xanuunkaas oo jiro inaan barnaamijkaas ilaalino, programkuna si uu noogu fududaado insha allahu tacaala waxaan kusoo koobaa inaan idhaahdo shirku waa noo furan yahay. dadka barnaamijka ka qayb qaadanana insha allahu tacaala wadada fiican oo dardaaranka iyo talada ummadda Soomaaliyeed ku jirto sida ay u tilmaami lahaayeen oo ay usoo dhaweey lahaayeen oo dadka Soomaaliyeed ama midka xilka loo dhiibay ha noqdo ama kuwa u socda insha allahu tacaala inaan wanaagga isu dardaarno. shirkana aan idhaah waa noo furan yahay. aada iyo aad aynu u mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha shirka iyo ikhyaarta fadhida rag iyo dumarba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nicmo Cabdiraxmaan Caseer iyo Axmed Wacees oo labaduba mar soo noqday xildhibaanada golaha deegaanka Norway ayaa sheegay in ay tahay wax lagu farxo yagleelidda gudoomiyaha guud ee jaaliyadda galmudug. waxa ayna gudoomiyaha la doortay kula dardaarmeen mideynta jaaliyadda galmudug. waa idin salaamo dhammaantiin reer Oslo. waxaa idinku salaamay salaanta islaamka. caawa waxaa farxad ii ah inuu dhacay isbedelkaas oo ah inaan dooranayno dhalinyaro yaryar oo hadda soo baxayso. waayeeladii waa ku daalnay. waxaan rabnaa wiilal actifa iyo gabdho actifa oo wax noo qaban karo. waayeeladana waxaan rabnaa inay gabdhaha iyo wiilasha noo doonaan. marka waxaa waaye waxaan halkaa uga jeedaa caawa farxad la yaab leh. maxaa yeelay dhalinyaradii ayaa wax loo ogolaaday. marka hore dhalinyarada waxba looma ogolayn oo marka wiil yar la arko waxaa leeyahay kan muxuu qaban karaa. waxaa laga yaabaa waxaan adi qaban karin inuu qabto. marka dhalinyarada aan kor u qaadno Soomaaliyeed. teeda kalena waa loo baahan yahay gobolada Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku yaalo gobol kasta in macnaha saan oo kale xaflad loogu sameeyo si oo nabad loo helo oo la isugu soo dhawaado. marka waxaan leenahay dhalinyarada yar noo badiya, gabdhaha yar noo badiya. farxad ayay ii tahay maanta Cabdirasaaq oo ah gudoomiyahayga. dhammaan waa islaamaya kasoo qaybgalayaasha xafladda tan lagu caleemasaarayo Cabdirasaaq Xasan Gurxan. intii ajiibtay intii qaban qaabisay dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad walaalayaal waqti oo iska aada ciriiriya waqtiga salaada hadda la joogo. barnaamijku wuxuu noqonayaa iska habaliyo si aad ogtihiin. barnaamijka halkan galabta la isugu yid waxay tahay caleemasaarka Cabdirasaaq oo ah nin dhalinyaro ah aada u firfircoon muddana arrimahan kasoo shaqaynahayay. aan leeyahayna waa ninkii ku habboonaa inuu noqdo jaaliyadda galmudug aada u kala daadsan ninkii midayn lahaa. ninkii ugu horreeyey wuxuu yidhi Soomaalida, laakiin waxaa ka horreysaba inuu galmudug mideeyo. aada iyo aad baan ugu hanweynahay. deedna markaasun baa la gaari doonaa Soomaaliya la habeeyo. galmudug howlaha ka socda ama asaaskeedii meeshii galmudug lagu asaasay wey. waxaana filayaa
dhowr qofun baa halkaan hawshaa ka bilowday muddo hadda laga joogo dhowr 10 sannadood dadkuna dadmooda baana aaminsanaa inaysan suurtagal ahayn in halkaa maamul laga yeegleelo ilaahay baa suurogeliya asagaa mahad iska leh in maanta marka ay ballaarato oo galmudug dadkii waagaas sidaan ka warqabin iyo dad ka warqabay iyo kuwa diinaaba ay maanta yidhahdaan galmudug Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 Dhuusamareeb 3 Dhuusamareeb dhamaystir 4 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay himiladeena taasay ahayd waxaan rajaynaynaa inay ka sii socoto ay gaadho yani waxa uu ahaa hamigeegu insha Allah Cabdirsaaq iyo ragga dhalinyarada oo kale oo guddiga galabta loo dooranayo Cabdirsaaq Hormoodka uu yahay waxaan rajaynayaa inay gaari doonaan waxyaabaha ka dhiman galmudug inay gaarsiin doonaan maamulka galmudug waa u hambalyeynaya dadaalada ay subiyeen dib u heshiisiinta qaybta ay ka qaateen iyo sida ay Soomaali isugu keeneen intaba hambalyaan leenahay Soomaaliya sida ay ogtihiin dawlad xoog leh oo maanta dadka matasha ma jirto waxay deegaan iyo wax hadda hab la isugu keenay baa ka jira waxaana muuqata in cadow fara badan oo meel walba ka soo duulay ama mid deegaanka ka jira ha noqoto ama mid ii sheegay gacno shisheeye ha noqoto inta ay xoog ku leeyihiin sidaa darteed waxaa la rabaa in laga qayb qaato Soomaaliya cusub insha Allah qaabka hadda wax uga socdaan Soomaaliya dad badan anigu aan ku jira waa dhaliilsan yihiin dadku badanaa waxay raadin kan mucaarad weeye mucaarad wax saxaan anigu mucaarad wax dumiye maahay waxaan rabnaa marka inay wixii anagu aan inta sheegaynay dadka ay arkeen baan rajaynayaa oo dadka naga daba yimaadeen marka waxaan rabnaa inaan wada qalad loo qaadin oo wada saxda loo qaado oo sidii wax lagu saxi lahaa oo wax lagu toosin lahaa inay ii sheegay loo istaago dad baa igu yiri rasuulaha hambalye kuwii ka horeeyay uma hambalyeena asaga mana mucaaradahay ayagana ma aanan mucaaradin sababtoo waxaan rabnaa waxa uu qabanayo inuu qofku iska la yimaado taas ayaan rabnaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inuu wax ka bedelan iyo talaabo ka duwan uu qaado tii ka horeysay laakiin ma aha inaan anigu gaar si gaar ugu hambalyeynayo si gaar saaxiib lahay gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee dalka Norway Cabdirsaaq Xasan Gurxan ayaa dhankiisa u mahad celiyay dadkii ka soo qayb galay caleemasaarka waxa uuna ballan qaaday in uu dhammaan gogol u fidin doono jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka jira dalka Norway gudoomiye soo dhow waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed wakiilada Soomaaliland ka jooga wakiilada Koonfur Galbeed ka jooga wakiilada Hirshabeelle wakiilada ka jooga maamul goboleedyada dhamaantood jamhadii xorimadoonta onalif xildhibaanadii hore ragga hadda xildhibaanada raba bahda saxaafadda fanaaniinta gabdhaha sharafta leh qof kasta masabkiisa iyo magaciisa oo meeshan ku joogo walaalayaal waxaan ku soo dhaweynaa salaanta ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi walaalayaal caawa sharaf ayay ii tahay inaad xafladan igala soo qayb gashaan iguna caleema saartaan waxaan rabaa meeshan dadku aad bay u daalan yihiin inaan afar qodob aan muhiimadda saaro midda koowaad waxay tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo meeshan joogta inaan erey ka yiraahdo jaaliyaddeeda cusubna erey ka yiraahdo dawladdii Soomaaliya wax ka dhaho maamul goboleedkii aan wax ka dhaha asagana galmudug marka koowaad waxa waaye xilkan waa xil culus ammaano cirkii dhulka diiday ilaahay wuxuu yiri ammaano waxaan u bandhignay cirka iyo dhulka iyo badda iyo berinka aniguna waa idin weydiistay adunkuna waa igu sharafteen meeshaas waxa waaye inuu kaana daluma juhulan ilaahay inuu yiri maartay yani bil aadan waa maartay yani waa juhulu marka waxaan rabaa ilaahay horta xilkan uu asturo midda labaad oo kale warwa inaan ka sheego jaaliyadda galmudug erey inaan ku iraadaan rabaa ereygaas oo ah walaalayaal dadka reer galmudug Soomaali maalinta ugu baahida badneed oo dalku gumaystaha ku jiray oo xornimada la doonay waa dadkii mataqaana caalamka Soomaaliya keenay markii Soomaali kala tagtay Ismaaciil Cumar Geele dadkii ku qanciyay inay gobol Soomaali u dhigaan oo dib la isku raadiyeen galmudug ay hayeen dadkii maalintii hadeerta maamul goboleedkii iyo dawladihii shaki kala galay isku aamini waayay kala taagtaag yimid dadka Soomaali dadka goosho u dhigay ee Soomaali goobay ee u kocay dadku waa galmudug walaalayaal waxaan rabnaa inaan is weydiino reer galmudugta Norway jooga
iyo galmudugta xagga maxay kala yihiin dadkaasaa maarata yani ka dhashay maxaana anaka mataqaana maarata yani meeshaan dhigay iyo meesha aan taagannahay kow galmudug madaxweynayaashii soomaaliya ugu badnaay laba iyo hal maahane inta kale reer galmudug ay hayeen ra-iisul wasaareyaashii ugu dambeeyena oo ugu tirada badanna waxay hayeen galmudug iyadoo saasa inay galmudug had yartaan norwayda degan ishaan ay yeelato mid la qaadan kara maaha xilkan aad ii magacaawdeen ood ii dhibtaan waxaan rabaa inaad igala shaqayno xilkan had yartaan qof aan kala wareega dukumenti ma jiro xafiis aan la wareegana ma jiro maamul mataqaanaa maarata yani dhisan iyo nidaam dhisan oo haddeer la wareega male meel eber ayaan ka bilaabay waxaan idinka codsanayaa haddaad igala shaqaysaan maalintaan xilka wareeji doono inaan xafiis qurux badan dukumenti maamul dhammaystiran aan wareejiyo walaalayaal midda kale oo aan sheegaya soomaalida norway daan nahna lambarka ugu tirada badan ayaan nahna quality-geennuna aad buu u hooseeyaa ayadana inaan iska warsanna aad bay muhiim u tahay markii aan maamul soo dhiso oo wax walba soo dhiso jaalidaha soomaaliyeed waxaan u dhigi doonaa gogoshaas aan iska warsan doono xaaladdu meeshay taaganta walaalayaal waxaa taas lagu filan wax walba kala taagnaasheen iyo wax walba waxaan ugu filan inuu siyaasiga soomaaliyeed ee norway jooga ama maarata yani gabadha soomaaliyeed inay reesadaan golo deegaan ayagoo fariisan kara isturtinka ayagoo fariisan kara golaha xukuumadda kamid noqon kara inay reesadaan waa kala qodobkanaga sharif xasan shidaadan in la yidhaahdo asagoo la dardaarma jaaliyadda maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu yidhi koonfur galbeed asagoo la dardaarma wuxuu yidhi reer koonfur galbeed madaxweyne ma dhalaan miya ra-iisul wasaare ma dhalan miya war anaku golo deegaan inaan aadna mahane ama maarata yani isturtinkaa fariisan karnaa waa inaan horta taas iska weydiinaa walaal horta inaan maarata yani gogol baan dhigayaa gogol qurux badan aan dhiganaa inaan soomaali isku raadsana waa rabaa haddaad igala shaqaysaan midda labaad oo ku xigta waxay tahay maamulkii galmudug ee ka soo jeeday madaxweyne cabdi qorqor axmed cabdi kari qorqor hambaliya ayaan leeyahay markii lagu doortay cadkii lamaada cararin lama aada tegin soo waxaa isku goobtay maamulkii galmudug oo dhammaystiran inaad ka soo shaqayso inaad maaragtay yani aad isku keento gogosha aad u dhigtay walaalnimada u filiday isku duubnida waa kugu hambaliyahaynaa adoona nasan isla markiina inaad soomaali raadido oo isku baadi goobto oo dowladdii dhexe maamul goboleed isku xirtana ayadana hambaliyaan leeyahay maamul goboleedyada soomaaliyana ayankana waxaa leeyahay hambaliyo dadaalka aad ka qaadateen iyo sharafta aad ka qaadateen iyo gobonimada aad ku qaadateen madaxweynaha soomaaliya halkaas waxaa u gudbaa midii maarta yani galmudug waxaa soo haray midda dhexe haddaan sii aado madaxweynaha soomaaliya horta waxaan leeyahay hambaliyo maadaama markaad aragtay dalku inuu burbur ku socdo inuu kala tegayo inaan mar dambe la isku keeni karin inaad maarata yani aad ka tanasushay doorashadii qof iyo codka aan suurtagalka ahayn inaad ka tanasushana hambaliyaan ku leeyahay dadkii ka soo shaqeeyay arrimahaas shantii maamul goboleed iyo maayarka muqdisho hambaliya ayaan leeyahay midda labaad oo kale waxaan leeyahay dowladda soomaaliya oo xukuumadda hadda la dhisay ra-iisul wasaare hambaliyaan ku leeyahay waqti aad ku shaqayso oo wax nagu qabato oo wax nagu samayso kuma harin waxa kugu harsan waxay tahay laba arrimood aan ka rabnaa labadaas arrimood ah inaad doorasho xor iyo xalaal ah isla ogol yahay ay dalka ka dhacdo adiga xukuumaddaada ka shaqaysaan midda labaad oo ka rabnaa waxay tahay gobolka banaadir oo dhibaatada la il daran inaad wax ka qabato haddii ay haleed xaquuq ka maqan haddii ay haleed amni haddii ay haleed wadooyin xiran intaas wixii ka soo hara haddaad waqti iskaga lumido waana raanabood aan exit lahayn oo ila meeraysaa waxaan ku dhihi lahay waari meeside magaca kaa haro walaalayaal waxaa ah midnimaana deeqda soomaalinimaana deeqda haddii aan isla shaqayno oo isla duubnaano oo dadka reer norway aan isla shaqayno waxaa dhacaya inaan istuurtiinkaa fadhiisano waxaa dhacaya inaan maaratan xukuumadda ka noqono meesha talada lagu goynana aan wax ku yeelano mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad meeshaan intii soo ajiibtay aad ay u maasan yihiin guddigii soo qabanqaabiyeen oo xirfadan sharafta badan oo dhigana aad ay u ammaanan yihiin kullay dadku intaa ka bacdi waa daalan yahay umalaynaa waqtigiina waxa qof bini aadan oo uu xaq u leeyahay waxa ugu fiican waqtigiina aad siideen oo aqra wax la isweydiinayo waxa kamid ah waqtiga aad siideen oo igu sharafteen oo meesha igu timaadeen taankii waa leeyahay aad baa u maasantiin meel gooni ayaad iga taallaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale dadkii goobta ka hadla ayaa intooda badan ku ammaanay guddoomiye cabdirasaaq in uu yahay mid ka soo bixi doono waxyaabihii loo doortay oo ay ugu horeeyaan
horumarinta, mideynta iyo ka warqabka dadka ku abtirsada deegaanada Galmudug ee ku nool guud ahaan dalka Norway. qayb quruxda badan ee halka kan ka soo qayb gashay aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin. saacadanada saacad abshir Allah ka dhigo, muraadkanaga Allah wada sahlo. waxaan leeyahay wiilkayga Cabdirasaaq Xasan Qurxan ee hambaliyo xilka aad qaaday Ilaahay ha kula qabto, Ilaahay ha kula hagaajiyo. xilku aad buu u culus yahay, mid fudud ma ahan, wax qof qaadi karaya maaha. mas'uuliyad cirba diiday, dhul baa diiday, ibni aadam baa qaaday. xilka culus oo Ilaahay cir iyo dhulba ka diiday inay qaadeen ayaad qaaday. Allah kula qabta ayaan leeyahay eedo insha Allah bil kariim. Ugu dambeyntii waxaa goobta heesa ka hadlaya wadaniyadda iyo maamulka Galmudug ku soo bandhigay fanaaniinta reer Norway iyadoo ay si aad ah ula dhaceen dadweynihii goobta xaadirka ku ahaa. Salaad Xuseen Maxamuud Daacad, Goobjoog TV, Oslo, Norway.